horta video waa qosol baan ku bilaabay. qosolka sababta ugu bilaabayna waxa weeyaan sheekada aan soo wado baa waxay tahay sheeko qosol leh iyo murugo labadaba. marka murugada noo dambaysa qosolka horta hormarinayna. qosolka waxaan ugu bilaabay waxaan ogahay sheekadan inaanan sheegi karin anaan qoslin, marka intaan dhexda isku celcelin lahaa inaan hal mar qoslo baa ii fiican. intaas marka laga soo gudbo, maanta waxaa dhacay sheekadu waxaa ku saabsan tahay maanta waxaa dhacay meel waxaan joogay adiga iska dhaqan, meel dhaqaneed baan joogay adiga meel guri dhaqan baan joogay. marka guriga dhaqanka wuxuu ahaa maqaaxi buu leeyahay. maqaaxidaas salaadii maqrib ka hor wax yar baan waxaan cuntaan dalbaday. cuntadii anoo cunahaya baa salaadii la adimay lana aqimay. cuntada tartiib baan cunahayay, marka waqtiga ugu qaatay inaan cuno. dadkii oo dhan waxay wada aadeen salaadaa loo kacay. salaadii oo la tukanahayo baa waxaa soo hartay hal gabar oo maaragta hal gabar baa soo hartay oo waxbay ka shaqaysanaysay cashir iyo waxbay ka shaqaysanaysay, buug iyo waxbay kusii jeeday. marka waxay fadhiday meel horteyda ah oo wax yar iga dadban bay fadhiday, oo aysan arki karin si sahlan aysan ugu arki karin ilaa ay u qasdido oo ay soo jaleecdo maaha. anigana danteeda iska wataa. marka gabadhii xoogaa waxaan umaleynaya inay qajishay baan umaleynayaa, xoogaa ay yaxyaxday oo dee waa iska garan kadhaa mararka qaarkood. ma garanay dadka waxyaala badan baa madaxooda ku jiri kara, iyaduna ma ogeyn wax madaxaya ku jira. marka waxaa laga yaabaa inay wax istiri imaan ku fakeraya iyo wax lamida. gabadhii way adkaysan weyday, dhowr goor isoo fiirfiirisay, iga sii jeensatay markay aragtay inaanan usoo jeedin. adiga markii dambe way ishayn weyday, way soo dhaqaaqday. ilaa 20 tilaabo meelahaas kale ii jirtay. way soo dhaqaaqday, way ii timid iyadoo xoogaa oo nervous ii timid. marka waxay ugu bilowday inay wacdido. wacdigana waa laga dareemaya inay nervous tahay. inay wacdiday bilowday, tiraahdo maxaa la dhahaa salaada waa inaad tukatay, waa inaad sidaan iyo sidaan, waa inaad sidaan iyo sidaan. marka anigana kama diidin. waxaa idhi haye waa saxan tahay, waa runtaa. sheekadiisa aan waday yaa waxa weeyaan qaybtii hadda faniga ahayd baa bilaaban doonta. fanigana waxa weeyaan waxaan aniga aan saan doortay inaan gabadha ugu jawaabo yaa waxay ahayd. gabadha waxaan ku idhi ma ogta horta salaada markay timaado gabdhaha keliya inaysan cududaar lahayn, xataa nimanku ay cududaar yeelan karaan. oo meeshaas dee cududaarkay dumarku leeyihin waxa wey hadday caado qabaan salaada fasax bay ka yihiin. marka rag wax u dhigmay xoogaa sheekada la xiisa badnaatay oo sheekadii bay filan weyday. marka aad ba ugu diyaar garooday inay maqasho maxaa la dhahaa waxaan sheegi doono, waxaan u jawaab celin doono. waxaa ku yidhi okay, waxaa dhici karaa ninka laftiisu waxa weeyaan scabula layahay, dhalinyaraa layahay, maxaa la dhahaa marka single baa layahay. waxaa dhici kara qofka inuu naag ku riyoodo, oo waa garan kadhaa waxaa meesha ka wado. naag intuu ku riyoodo uu maaragtay wixii dhici lahaa dhacaan, oo markaa isagoo qubaysan uu soo baxo. marka gabadhii kolley way bilowday inay isdifaacdo, wayna haysatay waxa isku difaacdo. marka aniga hadda waxaan isweydiinayaa kolley somehow aniga funny bay ila tahay, waxay la tahay oo maaragtay funny ah. laakiin gabadha dhinaceeda haddaan ka fiiriyo waxaan siri gabadha maku maaragtay maku khaldanayd inaad saa ku tiraahdi amay ka xumaatay. waa isleeyahay midda kaloo aan ogahayna waxa weeyaan qofka haddaad wax u sheegtid oo aad adigu intaad timaadid aad qofka wax la soo raadsatid, waa inaad ku talagashid wax kasta inay kugu imaan karaan oo aad diyaar u tahay. haddaa mar adig aad qaaday, aad tallaabada u horeysa aad qaaday oo ah in aad
wax soo jeedisid waa inaad dulqaadkeedana yeelan kartid wax ka yimaada. marka hadda tanoo kale ku timid u malayn maa inay filanaysay taas. dad badan oo dad badan oo maxaa la dhahaa waxaa laga yaabi lahaa inay dad badan oo filan lahaana male. marka su-aasheeda waxa weeyaan ma ku khaldanaa? aniga kolley dee siyaalo badan baa loo fasiri karaa, inaan ku khaldanahay inaan ku saxsanahay, siyaalo badan baa loo fasiri karaa aniga ahaanteyda. laakiin aniga waxa weeyaan ma ku khaldanaa mise waa ku saxsanaa. comments, leave a comments, like, subscribe, and let me know what you think.